janiga laga baxarabo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان بددوينها دافها دنيا نجد دعوانا يو هالك كان واتي في قرن كجمهورية سوماليلاند استوديو سمجالة لندن هذا عنو كلا يعني دي كسو قد بنا برنامج كارمها بالشدة وعنو تلقى الله إنه هذه جارة لك فايدة استدان تدك أكو حدان أما شعب أكو حدان تي في قرن كجمهورية سوماليلاند جودة هامبا هذا ما أنت يا مرتي وحيقوه aqoon-yahan reer Soomaaliland waa Umar Cabdi Umar Daawus dadkoo dhanna ay in badan oo kamid ah ummadda afka Soomaaliga ku hadasha ay si wacan u wada garanayaan Umar Daawus waa aqoon-yahan waa suugaanyahan waa dhaqanyahan waxaan jecelahay inuu caawo in badan oo warimaha bulshada uu inooga faa'iideyn doono iyo wixii uu cilmi iyo aqoon inoogu dhaamo haddaba aan si wanaagsan ugu soo dhaweeyay TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Umar Cabdi Umar Daawus aad baan TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland studiyihiisa London kugu soo dhaweynayaa ana waa mahadsantahay wariye waa ka guddoomay salaanta iyo soo dhaweynta wanaagsan oo aad soo dhaweysay aad iyo aad badan ugu mahadsantahay waxa hubala in ay dad badan oo ku xidhan TV-yada ama shaashadaha warbaahinaha ay Umar Daawus aad u garan doonaan dad badan oo taariikhda Soomaaliland iyo taariikhda Soomaaliyeed dhammaanba ay aad u garanayaan ka soo shaqeeyay warbaahinaha ka soo shaqeeyay idaacadaha ka soo shaqeeyay sida uu umadiisa ugu gudbin lahaa suugaantiisa iyo suugaan dhaqameedka iyo arrimaha dhaqanka intaba haddaba mar haddii aynu nasiib la yeelanay waxaan jecelahay in aynu dib u noqono muddo dheer oo Umar xasuustiisa ay ku dheehan tahay ama ay ku taalo maskaxdiisa mar walbana uu ka hadlo oo uu ka sheekeeyo intii uu la kulmo dadkana uu uga sheekeeyo oo uu kala hadlo haddaba waa maxay muddada dheer aan doonayaa dib ugu laabto 15 jirkii Umar ayaan doonayaa inaan dib ugu noqdo Umar waxaan jecelahay sida aan sheegay kulli imkooma koran maayo xagaad ku dhalatay xagaad ka timi xageebay ahay taariikh caynkaas oo kala maanta waynu ka gudubnay haddaba 15 jirkaaga man cimriga kaaga soo bilaabaya 15 jirkii oo aad kamid ahayd xisbigii la oran jiray Leego ama ururkii Leego la oran jiray waqtigaas ilaa iyo 60kii intii xornimada la qaatay wixii aad dib noogu noqon karto aad noo xasuusin karto ayaan rabaa inaad maanta nooga bilowdo halka أنا هو المحسن تعورية وصح وحي أن قحصوصته مددر وي إن ما أنت هالكدتك وقباهيو ووحي لو باهيه وي سنة تونتركي يورتان وحان حصوصتا مقالة اللي يرادو بربرا أيام كوكوري وحان قرابتدا إيادو حسب اللي يرادو كفرية oo dadka gabiyayaan oo ka heesayaan oo hadii la ku rooyahay laga shaqeynaayo dabadeed aniguna waayo yaraantaydii ayaan waxaan aan suugaanta jecel oo dadku markii soo hore markuu dhashay qofba wax jecel yahay caruurnimadeedii ma suugaanta iska jecelaayaan heesi jiray oo gabi jiray oo yarbaba أنا تبنشنا عيار بدي جري. كاسا قبلو مرة ميل بتوري جري. وقبلو نكان ديوينن وعياران ومبودان. إلى كشل إلى أنو هيسو مركان أنو هيسو. أيوة بعيار تسوي جري. شن يتبنشر كي يلاقي كو قرات صدي. وفرنت بيننا أنا لاقي قلايا. مكرفون كمان قبصدي. هيسي اللي هيسي اللي هو هيسي جري. وعي ما إنه كويس جري. شن يتبنكي أدوك مركو يدم ماذي. أيام نما نوالنا هاي شوكي مقالة عدن ليرا ده وحير إنك عايز سوق بيا هدو حبرا وياه وحبرا شدي ديوان هذا أنا حبرا شدي أنا جعلي يدعي عليها صح أنا مسؤول أنت جعلها وهي بدك قفول وهب قومية بولية لكن الصومالي ديانو إنه وحنون نغانا قف هدانو أما إنجليز هذا بدنا معارف هذا واساقط هذا ده كي أبل سقول كي وانو هذا ده إنجليزي ده واقف ساقط ساقط معه قفول وحبوش عليه
anigu hobbigaygu wuxuu ahaa aan jeclay ilaa min alyawm aan ninka weynahay suugaanta Soomaalida jeclay iyo afka Soomaalida runtii inkastoo loo baahayay af walba inaad baratid afteynana Allah ka dhigay doona magaalada cadan la yiraahdo u gudbay markiiba iskuul baan galay adla soo walaalkay baa igu daray oo magaalada ka shaqeyn jiray haddana laba ula farqad baan ugu tagay meesha inaan xideedii madax ka yahay iyo firqado kale iyo niman dhalinyaro ah fanaaniin oo heesta iyo gabay iyo hadii laba ku rooyahay tumanayo waxa aan ugu tagay marna iskuulkan tagi jiray marna firqadeeda raaci jiray habeenka gaafaf iyo waxa jiraan waxaan ka qayb geli jiray gaafafkaas waa ka soo heesi jiray adigu 2 sanadood markaan joogay oo maati dambe waxa la yiri Soomaalida waxay qaadanaysaa dawladnimo walaalkay baan u tagay waxaan walaalo heedhe waxaan doonayaa inaan Somaliland aado waayo wadankii dawlad baa ka dhalanaysa la yiri waxaan ku sheegay waa maqlayo dawlad baa ka dhalanaysa halka calanka waa laga saari doonaa iska joog halka ma yabaane waxaan doonayaa inaan meesha kana soo heeso oo halgankan wax ka galo ayaan doonayaa waayo waxaas waxay ahaayeen wax igu talaalan dhiigaagiba way igu talaalan yihiin waqtigaas ay igu talaalan yihiin qof walba bini aadanka Ilaahay abuurtay waxba u jecel yahay adeero ويقولوا دوني دونو سبع عليسن دوني سوى غدي بحيسة ها دوني دي بنا عادي هذا قعدوا هو حنشعل إنه يرادو ديارة سوى maalin labaad maalin saddexaad dibaan kulan la soo arooska yimid inna kale wada socdaan anoo markaa nagaafkayba ka soo heesay markaan isagii arko shaqo ku siiyay timo weyn baan lahaado ayaan cimaamad yaro aan siteeban madaxa iska saarsiyo ku garan kordan mira way ahay uu garto uu yeelay wuxuu yiri war diyaaradii doonida ku lahaa soo eego miyaadan soo eegin wadiga waa tagayay afar baan si samaystay maalin hore oo tasaga u samaystay waxaan doonaa iskala hadlo waxaan diyaaradaha badayday walaal dooni raxmad dawba baday ku degtay danteen ma ahay walaal dooni raxmad dawba adaan daaro iyo dukaamo dhisay dunyana ka dhaqaynin dawlad walaal dooni raxmad dawba ninkii doora diiqad lama geliyo walaal dooni raxmad dawba ninkii intuu cabaar fikiri ayuu yiri waa yahay maxaa doonaysaa diyaaradan doonayaa inaad saartid marka diyaarad la oran jiray Air Airways oo berberan ku ekay ayaa markaa bixi jirtay soo rusubiyo way alaabadaadiyo maalinta caankaas ayuu ahaato dharkaygu meel walba ku filqsan baan soo urusadayo muxuu ahaayay gabdho badan guryahooda dabadee dharkaygu waa soo ursaday dhammaan walaal diyaar baan ahay diyaaradii bii soo jiro diyaaradii baan raacayo berberan kaga digay markiiba dukaankii adeerkay baan tagay talyalle ilaa ku naxariiso soo kordhay markii hore bay hayeen waxaan la kulmay isaga iyo odayaal shiraya markiiba waan weydiiyay waxaan maxaa lagu shiraya waxa la yiri leego ayaa dadkii ku jiray waxay u xubsiibteen USB oo leego waa la inqilaab odayga markuu laba indhood saaray ayuu soo qabta yaraantiisii waa iskuuladiisii iyo waxa uga cararayo kana heesaayo marka waa soo weynaaday marka 17 baa iga go'ah beel loo xiri jiray xisbiyada dhalinyarada ahaa bay lahaayeen horseed la yiraahdo bay xisbi waliba lahaa beelkiiba beelashii halka qaar loo xirxirayo 2-3 dhalinyaro ah oo halka yaalo USB ay ku taalo ayaa markiiba lagu dhiji wuxuu yiri kanaaba de horseedka looga madax looga dhigaya warsoo sidii uma heystid waa kayga doobadii la xasuusi oo de cadan iyo dhulna soo maray oo si kororsaday وداوس لبحدو كلا يرك إلكا مريا dabadeed xisbigii baa mudasii baa xisbigii lagu furay uu ilkaystay marka xisbi kale marka jiro leeyahay SNL oo isaguna muddo badan ku soo jiray baa jiro isaguna ruug cadaaya oo maxamed ibraahim xigaal marka uu ka yahay chairman baan u maleynayay saaka dabadeed ayaama markaanu joognay baan hadana meeshii riwaad ka sameeynay waliya riwaad abaabilo waxa la toona laga dhigayo waayahay ayaamaan riwaadi meeshii ka dhignayo hargeysa loo gudbay calankii baa soo dhawaaday ummadda meesha joogta adeer mid jooga
iyo mid magaalo jooga waxa laale mandaqada Soomaaliland la yiraahdo waxa ku abuuran ee Ilaahay ku uumay walaal waxaan ahay waxa afkooda markaa soo marinaya ma jiraan xisbiyaha la kala ahaado laakiin ula jeeda la wada leeyahay xornimo iyo calan la gaaro gaarsidaas la wada haya wari gaarsidaas la wada haya ummadu meel hadaf qulay wada leedahay xisbi hal kala ahaado laakiin haddana hadaf kaliya la wada leeyahay in la xorooba la wada leeyahay hadaf kaliya ummaduna way isjeceshahay ummadda maanta kale irdhowday ee la leeyahay wiilyaa biisaan baysa salaamay haddaad aragto ninka maanta joogay adeer gacaliya aad muddo waa wax iska bedelay boqol sanadood wax jiray is bedelay argaysaanu tagnay muddo yar markii la joogay ayaa calankii la saaray ayaa dawladnimadii soo dhawaatay asarkii markay ahayd maalin hore 26 Juwaanigii sheegay ayaa afar xisbigii la oran jiray NUF SNL USB isna wuxuu ka goostay SNL isna ka goostay in la oran jiray Michael oo nin aad u raganimo badan oo waliba Soomaalinimada aad ugu wanaagsanay wuxuu doonayaa aaminsanaad waxaan isku ma jiraan adeer gacali nin ragal ah wax badan baa la shiraya Soomaalinimadiisu abdi kuwa lahaa muslim baa nahay aad iyo aad uga qiimo badnaadeen oo ka Soomaalisana ayuu buu samaystay marka waa afar xisbi leedo wali xogaada ka sii jooga laakiin aqlabiyadeedii degtagtay waxay noqotay USB casarkii markay ahayd marka waa hargeysa hadda garo habeenkii calanka la saari doona calansaarkii baynu soo gaadhnay calansaarkii baynu soo gaadhnay berbera ka nimi calansaarkii baynu nimi waa inaga maanta u diyaar garoobeyna casarkii baynu diyaar garoobeyna casarkii markay ahayd ba afartii xisbi intay soo raaceen garoon oo birtii dheeray ay ku xidhantay calankiina saaran yahay ayaanu isugu dhimi وعسكي ملول ببركة سومالي واللي سقيم دقموين قبل الله مية ملول بواللي سقيم وما تشرف له وهذا قروح بضان حتى كهود ككيم أيات تركي كسب كان قروح برواغايا كموغة غير مقانا هذا الكيسة بدي يبدأ قروح ايو وانا waxaan waxay ku xidhaadeen mooralka haddaad qurux aragto waa halka waa niyad weey qurux kale ma jirto qofku mar hadaan niyadiisu aanay fiicnayn wax kasto haysto laftaas inuu ka madow yahay laakiin umadu marka waxay ahayd nin waxaystay inima waxaysan badan dad ifaayo oo nool oo isjecel adu waa rabitaanka mooralkaada waxa dhisaya umada rabitaankeedana dhisaya هدفك قوله وضاري ولا هدو قفصاك وطابت ولا راليها مياه كطابت إما كان مرفع بوكو قدر درية وريا إلهي سومي ذا القراتيما ماشي بان نسوق إنما قرونك يسيدي اللوط بنايو اللو عياري ودadku in ka suumeel ka wadayeen haddana qolo waliba ciyaar gooniye iyo dhaqan gooniye iyo waxay wadataa oo qolo waliba ciyaaraheedii ciyaarayso qaar saylici bay ciyaarayaan qaar waxay ciyaarayaan jandeer bay ciyaarayaan qaar bat waxay ciyaarayaan si ceergaabo qaar bata qaar ba waxbay ciyaarayaan qaar hoylabidi bay ciyaarayaan ayaa Robertna saaray iraadada Ilaahay isla maalinta isla markii Robertna saaray wax dhaqaaqa ma jirin anaawo lama yaan iraadada Ilaahay in anaawo markay imka bari soo dhacdo soo lacarani maayo bal qof u dhaqaaqay shidan rashdan roobkii waa iska daaya ummadii way heesaysaa heelada inoo tuma la qaadaya ma jir heelada inoo tuma maghribkii markay ahayd ayuu qaaday waan garanayaa wali waan xusuustaa markaas ayna cigaal baysa soo taagay halka dag markii roobka istaagay maxamed ibraahim cigaal ilo ku naxariiso ilo qabriga ku nuur riis cigaal baysa soo taagay halkaas soo taagay soo suud madow iyo kaala mid madow halkaas soo taagay protocol baa la waxaan ku socdaan calankan birta saaran baa la soo rogayaa calankii birta saaran baa la soo rogay markii la soo rogay
oo kii caawa la saari 12 caawa beerta xorriyadda la isugu tagaya 12 ka hor waa inuu bartanka la geynaya kii markii la soo rogay calankii meesha xukumayay dalka xukumayay markii la soo rogay isagoo qoyan baa kii kalena la saaro birtaal bartanka la geeyay kii la soo rogay baa inta isagoo saa u laalaabay oo qoyan baa Maxamed Ibrahim Cigaal loo dhiibay anigu halkaasoo kale taagno mikrafoon maanaysta oo dadkiiba saa u waageeran dhalinyaro kale halkaa ka heesaysa gabaygiiba isaguna halka noo saaran timacadi markaa ma joogin meesha gabaygiisibaa saaran oo isagalan oo marba la saaraya sareeyo manusqaamow saaxirkii kala guure siduu yahay eegno kan nasiibka saare maasha Allah ku dhaxariiso ilo qabriga kuun nimbuha in ciyaal bacalankii loo dhiibay oo qoyan ninkii dalka xukuumaya karar halkaas oo kala taagan oo suul xistay macal barreetadiisu buu isna u dhiibay sida ugu dhiibay waa la dhaqaaqay sidaas uu la dhaqaaqay u dhacay qoladii bigilka yeedhi jirtay iskaadkeega garada bahasha xidhnayd kuwii baa ka daba dhaqaaqay bigilkii biriiri hees baan ka dabageeyay mikrafoon baan wataa beel baa ii xidhan waynaga karal erinay oo arjunay isagoo ooyay alaabta gurtay iftiinkeedii waa arlada nuuray udugii goronimada yaa urayay u ida ayaamaha wacan baan la bilaa u ida ayaamaha wacan soo meel gartay dabadeed halkii wax laga cayaaro in Cigaal iyo kooxdiisii way iska tageen dadka iyaga shacabka waa meeshii ku hadhay 12 iyo maqan 12 markii meelaha mareebaan dareeray beerta xorriyadda la isugu tagay organiska markaa waxa wada ninka la yiraahdo Umar Arte Qaalib oo laanka intuu oo dhalinyaro Allah saatimaha marbale hoos sidii geeyay badda saaleeyaa halkaas ay joogaan nin muwaadin wanaagsan oo ah dabadeed beerta xorriyadda la isugu tagay 12 habeenimo markay ahayd ayaa calankii samada loo laliyay ilaa waxaanu saacadu protocol buu ku socdaa iska saar maahay saacado si buu yiri ninkana calankii baynu samada u lalinayna galabta birtu saara bartanka lagaga tagay bartanka lagii mashaarada ay soo baxday daryaanka okay markaas waxa soo booday ismaan gacan loo markii ismaan loo jiray fanaanka caalamiga ah hees buu xambaarsan yahay uu sameeyay ninkii loo jiray Xuseen oo Faarax firqaduhu dadka meesha ka heesayaadeero qaarna waa firqado goomiya mid waxay ka socotaa idaacadda mid waxay ka socotaa firqad loo jiray 60 NUF baa iska leh ismaan oo idaacadda ka shaqeeya baa haddana halka atoore ka ah firqadan isaga atoore haddana ka ah Xuseen oo Faarax baa firqada madax u ah walaala Hargeysa saddexda firqadood idaacadaha ka socdaan iyo warka inka soo walaala Hargeysa marka idaacadda ka shaqeyn jiray laakiin Maxamed Salewaan baa idaacadda ka socda gooni isagu ka socda oo yeesayso inta yada kale heesaaga ama gabyaaga ah ee dhalinyarada ah ama rag waaweyn hada ma yaryaraadeen xusbiyada aanu ka soconaa ismaan baa marka ula baxay hees loogu talagalay waxa magaciisa heesta loo oran jiray waa salaan calanka la saarayo waa salaan markaas kooraska hoos laga qaaday calanka la saarayo waa salaan waa lagu sugo lagu saadiyay waa salaan calanka la saaray ismaan baysi dadkii hoosta ka qaadaya kaasa la saaray waa dhamaystiray Umar baa qabsaday wuxuu haddana waxa soo baxay ninkii loo oran jiray Maxamed Salewaan hees buu isna qaadaya marka heestaas ma socon hees la yiraahdo Soomaaliya dalacno maanta dawlad baynu nahay tanaheena weeyaan dalkeena u sarakacay maasha Allah heestaas markaas ay socoto hees may taabagelin
waxa haddana soo galay walaalaha Hargeysa Allahu akbar marka iyadu idaacadda waa ka fadhiyaan laakiin de waa ragga de heesaha kan caalamiga ah iyo riwaayado wax isku soo ragga isku soo dibariday oo waxay xambaarsan yihiin de heesa caalamiga oo waa heesii markii dambe ay xamar geeyeen oo ay ka mid tahay maandeeq waxleelo magoodo candadi kollaha marise an maalo hashe maandeeq ما شاء الله هي حسوس بيعاو قبل دي حسوس باقيال لو خرغيا خوركي laga dhamay xagaagi iyo حسوس باقيال حسوس ba xeer lagu xirgeeya wari anawiyo waynu garanay halkaas aan calankii ku saaray hornimadii baa dhalatay dawladnimadii la qaatay maxaad ka xasuusan kartaa markaa waxa ka qabatay adeer waxa ka xasuusan karaa okay goorma marka raggi tagay weeyeen tan waa halkaas aynu ku deynayna soo right heesaas waa la qaaday kuwaas ka mid yihiin calankii qaadanayo xurmadii qaadanayo ma sha Allah aroortii waa la fadhiistay marka baarlamaankii baa fadhiistay waadiga maqlado baarlamaanku guri yar bay galeen ku jireen iska sandaqada wax saas bay fadhiisteen waxa laga shiraya in la tago si degdeg loo tago de xamariyan kale xamarna waa ka soo wado marka hore la soo saxay oo halkan ay yimaadeen afartii saddex wasiir iyo maxamed ibraahim madaarka ana ku soo dhaweeyay marka ka soo degaanada madaarka ana ku soo dhaweeyay wadiyana waa sheekadeeda saddex hobal baan nahay bagaalaan noo saaray ma heesteedii waan habeenkii hore waan iga sheegay daacadii ka sheegay 60 ma ka sheegay 26 waxa laga fadhiisay seebanu yeelna waa naaqashaya marka waxa igu maqaala ah oo de markiiba aanu maqalay ali garaad baa yiri baa leeyahay saanu maqalay warba 6 bilood nimanku de 10 sanadood bay dawladda hayeen 6 bilood inuu kaaj waa saan maqalay la ya garaad duu baan anagu maqalay de shicibki meeshaan ku waageeranahay saasaan ugu gadaamanahay nagu dara لا يا قراد wax kale ma jiraan nagu daradaas un baan nahay la ya qaraad wala tiburiya waa umad maqashay hebel waa buuray hebel waa buuray suuraan ma yiraahdo array hebel waa buuray war dadku waa buuray umada ay makala laga reebay baarinta dadar kale waxaan ilaa wabanin ximiima ogeysiyo adeer umada ay makala wari umada ay makala hariya habeen laga reebay waa nagu daray bay maalinta ahayd baarku aha maalintaas maxay idin helay markaa adeer hadii xubada inta leegiyo kalgacalka inta leegi u jiray tan ku dhameystiro waxa uu la isku raacay markii dambe rag la raro oo la kaxay baa la isku raacay dabadaanu ka kaxayno 5 mayl ka la oran jiray madaarka imka xigaa loo bixiyay madaarkii baa nukin waa dhoofeen wali anigu ma badib uma noqo waa keenta fariin uu soo diraya leeyahay soo noqo anna waxa uu ma jeedo soo noqo iyo tacliin iyo doonaya inaan wax barashadaydii anoo nu weynaan wax barto tii hore baan ka carabay anna waxa uu ma jeedo wii jeeday dawladnimo iyo hadii allaba ku reehees iyo gabay iyo dawlad iyo calan iyo waxaasan dadna walba hanbu leeyahay hankaaga wuxuu noqday dawladan dhis oo dawlad dadku ha noqdo Soomaali dawlad ha noqoto ila waqtigaas ay ugu jirta Soomaali weyna wax noqoto waxaan ku qabaana ma jirto okay nimankii madaarkaanu geynay way tageen isla markiiba wariye run baan kuu sheegay intaanan anigu dhoofin nin baa markiiba ka yimi xamar markii dambe bari dambe ninkii wasiir buu noqday markuu xamar ka yimi meel waa cadhaysan yahay waa raggii dee sii qaaday baasho ka horreeyeyba macallin buu ahaan jiray yuusuf ismaaciil samata baa la oran jiray gaandi baa la oran jiray okay وقالوا سمت بوك شو يا أنت وأنا من متعلمين وفرق ninkaas markiiba soo noqdo markiiba soo noqday wixii uu ka soo carooday waan xusuustaa wali dadka qaarkiin ma ogaa meel daar dabadeeda
ayuu mikrafoon ku xirxirtay hadaladiisa waxaan ka xusuustaa xafladii markaan la isku dadkii ku soo ururay lagu soo ururay oo odayga dambaan dhageysano safar buu inoo sidaay hadalkiisa waxaan ka xusuustaa niman leegan la yiraahdaana laqay يعني هذا الرجال هاي أيوه نوشة أوكي الطير ضبابات وحنو مغلق عدنا ولي ما دوفنا ماشي أنا سكسي مع سنة وحن ربينا نتجين بابا وحن نقول صوت دوسي دولة دي ولا غيبش هاي سيدي لو غيبش وحن لو غيبي هاشا مبط مسبط بل لباح بركة على ما فلر مسفلر فلر لباح وصدق الله فلر كهلا مريم مسريم تمن تمن لباح سوى حال الله وبن الحبيب تمن كصور وحي madaxweynihii wuxuu noqday baa la yiri Soomaaliya koonfur Fariid ra'iisul wasaarihiina wuxuu noqday koonfur Fariid oo iska calaafay generaalkii military-guna wuxuu noqday koonfur Fariid generaalkii military-guna wuxuu noqday koonfur Fariid wasiirkii arrimaha dibadda wuxuu noqday koonfur oo maxaa haray waxa haray ra'iisul baarlamaanka waxa la yiri ra'iisul baarlamaanka iska biyeysta hadaatiin Soomaaliland waan xusuustaayo nin la oran jiray inaan dirir qadaa haddaan deelo sanahay waa la isixitay oo qabiilkan la yiraahdo la qabaa'il been nahay ida gale ayaa laga dhigay cigaal inaan xusuustahay haddaan ilaa waa la sixi doonaa wasiirka difaaca laga dhigay saasaan jecelahay haddaan qaldo deera kale ay sixi doono subxaan allah ama saasa wuxuu dhaceenaa waxay noqotay kaafiye kala dheeri nafyahay ku hatay been kuu sheegi maayo adeer halkaad ka tiris dadku wax kastaba ha iska sheegeen qaar baa waxay yiraahdaan hadda miihi anigu adee nin cid la cola cid aan mucaarad ku ahayna ma jirto weliyo cid aan mucaarad ku ahay iyo cid aan nabahay wala minno jiri ninkayga soo maaragtay soo dadka qaar ma yiraan dad baa mu ciil qabna ama hebel baa mu ciil qabna ama koox baa mu ciil qabna bal ilaahay Soomaali inta ay ka tira la egtahay cidna ma cilqo wallahi qof ku cilqaba jiri ma sha Allah ilaahay baa mahaddaas kale alxamdulillah rabbil alamin ilaahay hibada si saai gartay waa mahaddaale laakiin qadiyad baan leeyahay waar tameela socod saaxiib baan leeyahay ray dareenna waan leeyahay arrimo waa kala jaaja laakiin ilaahay mucaarad ku hay ma jiro halka waxa soo baxay waan ku sheegay Soomaalidu waxay adba dad ay eedeeyaan هذا بلايا هبل كما هرين هذا بلايا الدكاية كما هرين سدا يساواي بيوي معارضة ummadda ku nool dalka Soomaaliland leeyahay maalintaas ay bilaabantay walaxankii markii halka la geeyay bilaha yar kadib waxayna ku bilaabantay arrinkii halka ka dhacay way qaybtaasi sidee noqotay arrinku halka ka dhacay markiiba rag baa soo noqday oo taad ka sheekaynaysan waxay doonaan bay iska sheekaynayaan yardadan xogogaal laahayn dhalinyaro yar oo saciil qabo balaaya lagu soo balaaya iyagu la kulmay meel kasta ha joogeen iyo dadan ku qarinaya dhibaatooyinka ay sameeyeen ku gudbaya oo ku qarinaya baa waxay doonaan iska sheegayeen dhibaatada adeer maalintaas ay bilaabantay way marka beenaale markaatigu isu fogeeyay koob iyo 60 kiina inqilaab baa dhacay wuxuu inqilaabku ku dhacay arintaa muddo socday iyo mucaaradada adeer
waxaynu runtii barnaamijyadaada waxaan doonayaa inaynu kuwaas aynu aad halkaa aynu bal hadda hadhowta ka ambaqaadi doono insha allah barnaamijyo kale badan baynu isugu imanaynaa aynu balse waan soo boodsiinayaa saacadeenna iyo taymkeenna oo maaragtay dee koley barnaamij kooban aynu kaga hadlayno maanta somaliland baa layna yidhaahdaa wixii hore inoo soo marayba way soo mareen way soo dhaceen waynu soo ogaanay dowlad baynu dib ula soo noqonnay madaxweyne axmed maxamed maxamuud siiraan yaa haysta wadankii berigaa hore iyo dowladaha hore soo maray wax laga qabtay may jirin maanta iyo siday wax kuula muuqdaan marka dowladda hadeerta haysata ilaa iyo somaliland aad imanka dibal taariikhaha adeero waad mahadsan tahay oo yidhi kaskiisa nin waliba ducaalow kor tagaay nin waliba fikirkiisa adeer horta ayuu leeyahay muuqaalkiisa wixii uu arkuunbuuna ka sheekeeya qof walbana caqligiisa dadkuna ma aha say aniga ila tahay qofka basharka ah ilaahay abuurta isagu waa inuu sharaftidiisa iyo karaamadiisa ilaashada aakhirana dhinaciisa waxa ka dambeeya uu la socda inuu eex sameeyo ma aha hilba ceedhin inuu dadka saarana ma aha inuu qof bini aadan oo ilaahay abuurtay oo aan waxba u geysan oo cirdigiisa iyo bini aadannimadiisa iyo dadnimadiisa ku baabiyo isku qolamaneen ama waxba ima taro ama xaaraan maqdaca wey aniga waa waxyaalaha iga xaaraanta axmed maxamuud siraayo somaliland dowlado badan baa soo maray intii ay go'aan ka gaadheen la soo noqdeen dowlado badan baa soo maray cigaal markii labaadee laga doortay meesha la yiraahdo Hargeysa anigu waxaan ka soo duulay meesha la yiraahdo Liibiya anoo lacag badan qaatay 600 oo diinaar markii waa laga doortay Boorami barlabaadkiis baan shaqadii risaanka iyo mana dinka la doortay waan ku noqonayo dalkii marka dee rajulay ismalayn marka waan ku soo noqon process baa dhul kale iyaga socday halkaas aan ka shaqeysan jiray walaalkii waa UNT soo shaqo lama rabin markii ninkaas la doortay runta ku sheegay waa soo noqon aan wallahi dalkii rajulay mana dinka siimiyay dalkii tag waani mid dalkii oo de wixii la fanguray oo la hagaajay oo laba baarlamaan loo sameeyay ka soo kabanayo hadii alla ku roonyahay ina cigaal marka intii anigu aan joogay ina cigaal ninka la yiraahdo sida adeer anigu aan aqaan si badan baan u aqaan si weyn baan u aqaan nin deela kabaama nin madaxu ah ana min shacabana laakiin waan aqaan kuwa taqaan isbiyaan loo wadahay qayriyadaas oo isna ka qudbeen jiray anaa ka jiro ka qud laba nooc ka qudbeeya ahayd oo halka la iga saacabeyn jiray ilaahay igu ogsoon yahay hadda qayriyada la yiraahdo xisbiga SNL buu garan maayaan dhalinyaradan dambe ma yaqaan qayriyada iska leeyahay halkaas aan ka yeeshaadeen inuu tadbiir bariga oo la iga saacabeyn jiray oray ina cigaal runtii dadku u rooyay run baa ku sheegay dadku u rooyay laakiin badanaaba dadka wax ka qabta xagga dhismiisa waxaas uma badna nimba ilaa adeer nin waliba wuxuu leeyahay aragti gooni u leeyahay dadku u rooyay anigu intaan joogay in cigaal dadka u roonon buu haayo dadku baa ammaan jiray oo inkastoo dalkii hagaajay oo hadii la qoray baarlamaanka haykalkii dawladda sicil haykal maxaa ragan qaban lahayn hadii kale haykalkii dawladeed qori sudii bay ahayd qori sudii adeer haykalkii dawladeed maxamed ibn ragan cigaal baa soo cishay oo dhidibada u aas nin de jamhuuri isaga samaysanna wuu ahaa nin jamhuuri ilaahay u sameeyeyna adeer wuu ahaa ilaahay qabriga u nuur soo mid gaartay aad baan ninka u jeclaa okay waxa soo ka qabsaday riyaalkaahin ma maqal wax mashruuc ah oo qabtay anigu amaankii iyo nabadii uu buusnaa adigu nabadii iyo haykalkii dawladeed uu sii hayay halkeedii uu ku hayay runtii waa xafiday
mashaariic qabtay ma jirin nabadgelyadii iyo wixii uu ninkaasi qabtay buu halkiisii isna ku hakiyay waa wax wanaagsan waa wax wanaagsan labaduba okay way right Ahmed wuxuu yiri marka dal dhisan ma sha Allah tabarakallah laakiin wax badan u baahan waa markaan dhageysto idaacadaha anigu dadkaan adeer dhageysta صح wax garadka ayaan dhageystaa okay waxa iigu cajab badnayd meesha la yiraahdo wadada ceeriga ageerow dalka Ingiriis baa xukumi jiray sidaas uu kaga tagay inta soo dawladood baa soo maray dalka qolo waliba halkeedii bay kaga tagtay qabeen baa sheegay bari baan anigu maray anoo wax yara gaari baan la socday odayga adeerkayo la taliyeen loo kuleelahana markay wax nala geyn jiray burco iyo hadii la xirgaabo iyo guryo ku wada lahaa dukaamo qaboobaha markay taana berberaanu tagi jireen tabadan bari baan baabuur la maray inaanu dhaxnay xirgaabo u dhaxnayeen kala garan maayo kollaba sanaf baan la tagnay xirgaabo anaga noolay god iyo beliya baasbaya maalinta dhagahaygu ku soo dhaceen wadadii dhagax baa la dhigay inda furaan buu bixiyay maalinta anigu inda fure ma sha Allah sunnad garatay ma ciidiga hoos qaaday baan jiray ma taasi waa laga maqlay sunnad garatay ma ana aashuun ku adamay ma tadalay TV ga ma adeero aniga aashuun ku adamay qobra hoos wadtay sunnad waxa inda fure min iska adeer moogtay iska daacado meelaha wadeen iska fadhiyaan leeyahay mooduni wax meelaha waa ka ilaadaay waana qaadin waa qaadin dadku sidoodaba wax xun bay qaadaan waxa xun ay adeer qaadaan waxa wanaagsan Soomaalidu ma qaado runtu saas weey inda furan wallahi waayo qaar bay ugu yiri maalin waan gaayno anoo fadhiya Blue Ocean oo muxuu ku faray adeer ima saxiixna wadadaas wallahi sanadood bay jirtay oo wadankii badankiisii iyo miisaankiisii dawladda isku jirta baa rag xukumayeen aan wali dhagax la dhigin iminka meeshan ninkan halka maamul yar buu madax ka yahay waa kaas oo turba dhagax buu dhigay ma sha Allah waxaan kaloo daawaday iyadoo survey turba la dhigay walaal ma sha Allah waxaan kaloo waraystay nin soo baray baan waraystay oo igu yiri 3 saacadood iyo 4 saacadood ma waxaan u soo socday burco ma wuxuu igu yiri baladoo fiirso ninka kale ugu ma rabbi hadeen waan waraystay intaas oo saacadood baan u soo socday buu yiri oo meeshii loo dhixi وهذا محاسد بان مركب نقضاها ما حاشا كلا حتى الصيناية ما يقان أقول Soomaalidu dadka waxay u taxgelisaa ama u ammaantaa deero waad garanaysaa waa qaraabada iyo isku ilbacid baan nahay iyo saaxiib baan nahay no waxbaan ku qab no haasha kalla arrintu saas ma maradaatay nin muwaadin oo sharaf leh karaamadaada iyo sharafkaaga waxaad ku ilaashataa qowlka ka soo baxay ninka muwaadinka ee madaxda ee Soomaaliga ah meesh bandaqadu doonaa xukum wuxuu qabtay iyo wuxuu qabto xaasidin isma nagaan kuma xidha xaasidin waa inaad sheegtaa tameela socota waxa kaloo ma waxa la yiri ciidamadii baa la dalacsiinayaa waxa la siinayaa garaad qaar baan maqli jiray way iska riyo xagga ciidamada yaasin waxaan kaloo maqlay markuu campaign-ka ku jiray wuxuu yiri haddaan meesha qabsado ummadda shaqaalaha ama mid qalab sitaa noqdo ama mid darcada ha noqdee 100% baan mushaharada u kordhinay tiini waa sameeyay warbaliikaadi ay ligdin boobin wari adiga oo raaliya qaar baa waxay ugu oran jireen waxa uu lacagta ka keenay ma suuroobaysaa la oran jiray war baan ku soo wadaa
waxaa la odhan jiray adeer wax suuroobaysa maaha subxaan allah waa qabsadayo ilaahay baa u gartay waana nin muwaadina ilaahay baana u gartay inuu meesha qabto waana muwaadino dee uu dhash xaq buu leeyahay waliba isagu halgan buu soo maray afka maabcidi uma soo marmarin labaana kursigan iskaga soo fadhiiso birbuu seexday kudkuda ku cunay waa qabsaday meeshii ilaahayna waa u gartay waa suurowday adaa weliba iga xoogaalsane anigu dee warar uun baan hayaaye warwarkiioo waxbaan waraystaaye soo ma jirto ciidamadii la dalacsiiyey afku kuma gu okay soo ma jirto shaqaalihii boqolkiiba boqol in loo kordhiyey soo ma jirto iskuuladii xukuumadda bilaash laga dhigay malada fiirso hadda soo ma jirto in bilaash laga dhigay adeer maxay u qarinayaanay waxaa dabbaale ma jirto kuwaale ma jirto hadda anigu ma haysto ogow laakiin waxaa jira dhan sheegaya anigu ma haysto yaa hadhow bidhaasan odhane annagu mucaarada u yahay anigu ciidana muraaho laakiin xashakalla anigu niman kaga waabanayo wixii adeerayla tahay ma jirto intaasoo dhami waa jirto waa dhacday dalkaa yar waxaa la yidhi bilaash baa malcaamadii iyo iskuulladii iyo wixii oo dhan looga dhigay dariiqyo fara badan waa la sameeyaa la yidhi inkastoo dariiqada weli sidooda ay yihiin laakiin anigu inta ii qorani waxa weeyaan waa waxyaalaha adiga kugu mudnaa ee mas-uuliyadda ah ee waaweyn badadaasaa ka mid ah ciidamada in la dalacsiiyaa ka mid ah dadka in lacagta loo kordhiyaa ka mid ah in tacliinta looga dhigo dadka bilaash baa ka mid ah waa wax wadanka ku dhaqma ku dhisma waa waxa dowladi ku dhaqantaayo nin siciin oo madaxay laga rabaa inuu sameeyo fiirso mudayir buu hayay waa sameeyay right aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaan doonayaa in aan imikana su'aal kale haddaba oo su'aashan ka soo dhexbacday aan ku weydiiyo cumarow intaasaad ku soo dhex jirtay haddaba xisbiyo mid mucaarada iyo mid muxaafidaba ummadaaduna way ku wada daawanaysaa tv-ga qaranka laga daawanaya su-aashan doonaya inaan ku weydiiya waxay tahay dadkeenna in aad bal noo kala sheegto waxa uu yahay mucaarid iyo waxa uu yahay muxaafid labadaas sidee loo kala saari karaa adeer waa mahadsantahay weriye weriye canaawi adiga oo mahadsan dadka qaarba sibay u yaqaaneen dadkan malaha phd-ga sita iyo dowladaha kan wastaranka waraaqaha ka sita iyo malaha siyaabo gooniya u yaqaaneen baan u malaynaya aniguna si gooniyaan u aqaana waa runtaa anigu xisbi mucaaradana waa soo noqday mid muxaafidana waa soo noqday ninkuna arrimaha mujtamaca ama waxyaalaha dowladu ku dhaqanto ama siyaasadda wax kastaba ha ahaatee waxa uu wax ka fahmi karaa marka uu xisbiya hoosta ka soo bilaabo hoosta ninkaasu waxbuu ka fahmi karaa waa waayo arag ninkan waraaqda dowladaha wasaranka intuu yimaado waraaqda weyn ka sitaa wixii ninkaas uu soo sheegay unbuu sitaa waxaa ninkaas uu ku soo baray ayuunbuu sitaa wax kale ma adeerde xigmaduna waa dhalashayada lafteed xigmadda waa leeyahay alxamdulilah ilaa xad ilaahayna xigmad buu isiiyo waa leeyahay suugayahan baanu nin suugaanta si noocay u tahayba boqolaal bayga badiya laakiin noocay u tahayba waan aqaana waxbaan ka aqaana marka adeer mucaaradada iyo muxaafidku labadu laba dariiq bay kala leeyihiin siday anigu aanu aqaan ummad kalena si kale u taqaan laba dariiqoo iska kala cad bay leeyihiin hadda ka horna waan sheegay ninka la yidhaahdo shaqalle habeenuu iga qabanayay ee muxuu ahaye
hadal yariga duubay dekada waraysi yariga duubay shaqada waa nin wanaagsan waa jeclahay ma sha Allah barakallahu halkan ka salaamay waa nin odayo sharaf aad baan salaamaynaa waa nin odayo sharaf leh waana salaamay halkan ka salaamay waa nin odayo sharaf leh waxaan hadalkayga ku soo gabagabeeyay mucaaradadu wax dumin ma aha waa wax toosin waay imikana sidii waan adeer leeyahayo mucaaradku dariiq buu leeyahay muxaafidkuna dariiq buu leeyahay muxaafidkan ku horeynaya ninkan muxaafidka ah waa ninka maanta xilka haya isaga iyo gruubkiisa inta xilka haysa muxaafidku waa carabi dadka maanta hoggaanka haya dadka weeye dadka la doonaya muxaafidka la yiraahdo iyo taageerayaashooda mucaaradka maxaa laga rabaa hore aan adeer u sheegay mucaaradow adeer wax dumin maaha hore aan u sheegay weliba anigoo nin odayaa ah nin gaboobay baan ahay haddaad gabani moodana gedihii la saacidi jiriyo gudcadaan ahay xanaawow wax badan baynu wada sheekaysan soomaaloo dhan baan la hadlayaa maanta oo mucaarad isugu baxday boqolkiiba 80 20 jir ilaa 60 jir weeye dadku adeero waxaan ku oran karaa mucaaradada ma garanayaanba waxay u haystaan wax dubin habeenaynu fadhinay oo adigu shir noo qabateen adiga iyo Cabdalle iyo qoladeenaas habeenkii waa aniga ka hadlay oo lahayaan lagu xadgudbin maxay madaxda maalin dambe rag baa qabsaday miyaan ku sheegay siilaayad madaxweyne siilaayad ammaan war ma ammaanina waxaan idin irdigiisa iyo bini'aadanimadiisa iyo dadkiisa iyo xaasaskiisa ku xadgudbinay shaqadiisa wax ka sheega sax waa runtay hadda baan leeyahay adeero okay ninka mucaaradka waxa weeye mucaarado dalka dumi ila wax dumisid ma aha qoritulo qorigii jabiyo qori kale ku jabi qowla maqashii waxba ha u qaban ka mucaaradku shaqo loo diray inuu yiraahdo sagaalka ba iskaga rag wuxuu yiraahdo qaadkii baa igu soo dhacay waxba iguma filay baa ka sheegay oo yaad ka duminaysaa madaarada waxa la leeyahay waxba yaala musbaar hadii meel lagu mudo waxa yaan waxba laga qaban taas mucaaradada yarmaa taas adeero mucaaradad ma runtii hadhow rag baa oran doona anigu badeeraha igaan hadlaya mucaaradad ma aha taas runtu mucaaradad ma aha okay haddaa tiraahdo meel allaale meeshii la israado waxa laga qabtaba نقول سوق توي هذا وحنا لقى قبل ماي هذول عندها الله صامر مرتوي وردتك واشغال أيه الميديا اللي يسوي تقول يا حلو وردتك واشغال أيه وردنا اللي يرى هذه هذا بدأ يسوق قريش وكل سوق كسب حوار وشغاي وبيش شغال لقى السماء الله شغال السيلة السماء كتكين معيه السماء كتكينية وأنت كابورة وأنت كابورة أما كوحديسو أما رجيسو أما يسوق أما الدولة ديسو أما الدولة أما الشعب أي دولة شعب الله ورا تلك الكابورة why not تحديدا للديدو أو حبل لقى قبان مايو حاجة شغادة لقى أبوري هذا كويتي مركا معارضة تامة واحد من ماها واد من وي تاس واد من أما وحي اللي مدر واد من داريس تاس معارضة معها مركا وحوي waxaan anigu leeyahay caaradada aad baynu waliba ugu dheeraynaa runtii koonfurta inaga kaga dheerayna marka waxa leeyahay war mucaaradada haloo meel dayo war mucaaradada haloo meel hal mucaarad adeero laakiin mucaaradadu yay noqonin hadba ninka madaxda ah horta ninka madaxda sidiisa adeero naftiisa iyo irtigiisa iyo dadnimadiisa iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa in wax laga sheego waa mamnuuc xaq loogu male run baan ku sheegay maamulkiisa waa in wax laga sheegaa siyaasaduhu dalka ku hagayo waa in wax laga sheego waliba waddo wax cadyaal ee aan lagu dabiqin ama isku qoran ma nihin Soomaalidu nooyo baashaas ay raafaysay anoo kale looma sheekeeyay ama aan lagu dabiqin qabyaalad lagu dabiqin iyo reerka yaga ma waxaan doonayaa barnaamijkeenu runtii gabagabo iyo buu ku dhow yahay laakiin su'aal baan ka horeysiinayaa inta aanan gabagabayn su'aasha aan ka horeysiinayaa waxa weeye
de maanta odigaasoo odaynimaad halkaa u fadhidaa talaad u fadhidaa wuxuu sheeg baad u fadhidaa odayaashii kula midka ahaa ee reer Somaliland ama odayaashii kula midka ahaaba waxa ay wadog tahay oday dhaqameed la lahaan jiray salaadiin baa la lahaan jiray cuqaal baa la lahaan jiray imanka waxaad moodaa inay isku milantay arrintii maxaa isku milka keenay maxaad se nooga faa'iideyn kartaa dhaqan ahaan qof waliba halkii uu markaasi uu mansabkiisa iyo magaciisa iyo maamuuskiisa uu ku joogi jiray adeer waa mahadsan tahay say aniga ila tahay birkuma gooyin nin waliba kaskiisaan nin waliba ducaaloo kortaga waxay aniga adeer ila tahay waa runtaa berigii hore ummaddu sideedaba waa qaybsanayd ummaddu sideedaba waa qaybsanayd ninka oday dhaqameedka ah garaadka ama boqorka wax kastaba ahaadee shaqaa loo yiqiinayo taytarkaasaa loo yiqiinayo lagu taxgelin jiray caaqil baa ka hooseeyey jiif caaqil la yidhaahdo waa lagu yiqiinayo waa lagu taxgelin jiray kuwa jawaabdaar la yidhaahdo iyaguna kuwaa kasii hooseeyaa jiri jira deeqsiga waa loo yiqiinay halkiisa milgihiisa waa loo yiqiin waxaa la oran jiray habeen baaska war hebel inagu beega hebel baa diifta inaga rogaye waaba adigoo markaa dee ama sahana ama xeelo kaa lumeen hebel inagu beegaa la oran jiray isaga hee ayaa waxaan inahaya inaga rogi doona inagu beega deeqsigaa waa loo yiqiin ninka dhabcaalkaa waa la yiqiino wuxuu war waa hebel inaga duwa waa hebel inaga duwa isna marxalkiisa waa loo yiqiin ogow sax geesiga waa la yiqiinayo dee waxaa la oran jiray waa hebel waa geesigii hebel dee inoo soo kaxeeye fulaha waa la yiqiinayo waxaa la oran jiray dalkuu inaga jebinayaa hayna ku darina nacaska waa loo yiqiino waxaa la oran jiray wayna basaasaya oo nacaskaaga heedhagtii waa la iska fogeeyaa nacaska shisheeyahana waa la soo kaxaystaa baa la oran jiray haynoo xanwarramee kaaguna aduu kaa xanwarramayaa waa la iska fogeeyaa bal hadda walaalo bal hadda weliyo fiiri dadka qof waliba waxa uu yaqaan adeer loo yiqiin maxaa hadda isku milay maxaa fooda isu gashay calanka maalin ma qaadan adeer maalintaasay foodaystartay aan kuu faahfaahiyo oday dhaqameed qayilaya miyaad weligaa maqasho maba dhicin de maanta waa adiga arkay ilan dhaqan baa uu ka hadlayaa iyo waxay dhaqankii hadduu asagu qayirayo dhaqan ma jiray dhaqan u yahay miyuu ka hadli kara hooylebe kurmale waa dhaqankii subanaade inta laba gooc xidiga soo qaato iyo laba kabooda feegabow iyo shaaruug iyo bilaawi yani la rashwaan halka hadduu dooro kusoo qaato waday dhaqameed u yahay kaalay dowlad baa tiri nin dubutaatiyaa meeshii ama xildhibaan kuwana wax kastaba ku sheeg lacag buu wata doorashuu soo doonanayaa reerhii buu imanaya fiirso odaygii halka ula baxay odayaheed halka ula baxay dayn lay doortaamaan doonaya inta dhantay raggan waxaan ma ogoontii geedkaas inta laysugu tago geedweynaha ayaa nabad iyo caano iyo dhowrto maalin walba hilibka iyo caana halkaasaa laysku wareysan jiray hebel buu arkay hebel meel heblaaya inoo wareeye halkaa roob ma ka da halkaasu sidee tahay gaal iyo camalkeed kama marka halkaasaan soo maray meel heblaayaan isa soo roobku waa lagu iyo gacan halkaa roobka ku da waa kalkal fitadu waa isgoysay meesha waxa weeyaba la guruleeyahay gaalo iyo camalkeedna waruma hayo siyaasad waa ka baxay ninkaasi shaqo kuma laha walaalow bal hadda fiirso ninkaasaa yimi dabaday ninna ha weydiin adeer waxa isku milay iska ilo tala guud
guntigiiyo gabagabadii baynu soo gaadhnay barnaamijka Cumar Daawus waxaan doonayaa ummadaada mid halka kula jooga oo qurbaha jooga mid wadankii jooga mid TV-ga ka daawanaya inta shaashada TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland daawan doonta taladaada aad siinayso ee kama dambaysta waa maxay waxa weeye waxaan leeyahay subhanallah Somaliland waa ladantihiin nabadgelya haysata geeluba naqdoogliyo nugaal waa ku dararaa meelay nabadi joogtiin nabad wax dhaawaa ma jiraan wax kastaad haysato mar haddaadan nabad haysan dee kuu dhadhami mayso ragga gogashi waa nabad inuu afkaanu ku goy nabad baa haysata hargeysa adeer anigu oo jooga baan ballam ilaahay ka oran jiray intaan maaweeliyeysa soo taago lacagta halkaa taaltaalaa nabad bay ku fadhidaan nabadiina ilaashada ballam ilaahay yaa i dirtay dalka iyo dadka ayaan adeer jeclahay sax ma anigu siyaasiyiinta iyo kuma xidhi dalka iyo dadka ayaan jeclo dee waa dadku waa dadkayga Soomaali oo dhan baan adeer jeclahay markaasaan haddana kuwa u sii jeclado dee waa meeshaydii xamar markaan ka qaxay adeer gacali xagaan u qaxay believe me xamar markii 19 aan ka qaxay gurigaygii sidii baan wali uga maqnahay waqooyi baan u qaxay Somaliland baan u qaxay dameela socod waa bartaadii gurigaaga hadda waa sidaade waxaan marka leeyahay dad iyo horta nabad baa haysataan nabadiina ilaashada ko idinkuna is nabadgeliya waa laba oo haystulminina sax dadkiina circle-ka ku jiray la yiraahdo Somaliland shaarka dawladaha ama dadka kale oo jaararka tiina nabadgelyo siiya ilaa haday nabadgelyo idinka waayaan idin nabadgelyo heli maysaan sax idinkuna is nabadgelyo umada ilaahayna nabadgelyo cadaaladna ogaada sax madaxdiina adeer habare bagaaminay hadday yiraahdaan waxbaanu idin qabanaynaa tartiib wax ugu sheega laakiin habare bagaandada ka daayay naftooda iyo maalkoodana waxba ka sheeginay ka jooga hadda iyo ka iman doonaba iyaga maamulkooda wax ka sheega waa iga talo maamulka wax ka sheega laakiin naftooda irdigooda iyo shakhsiyadooda iyo xaasaskooda xashaka waxba ka sheegina idinkuna isla nabad doorashooyinka soo socda waxaan leeyahay madaxweynuhu khayr Allah ku siiyay waa dadaashay ka tag dhaxal tartanku waa inuu noqdaa mid xaq iyo xalaal Cumar Daawus aad iyo aad baad u mahadsantahay aduna daawadayaal intaasi waxaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii arrimaha bulshada ee idin kala socoteen TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo idinka imanayay studio-ga magaalada London aanu ku leenahay dalkan Britain waxaan halkan uga mahadnaqayaa agaasimaha TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee qaaradda Yurub Cabdiraxmaan Aadan Dheri iyo dhammaan howlwadeenada TV-ga qaranka waxaan mahad gaar ah siinayaa injineerka xagga dambe hawsha ka wada waa injineer Jamaal Yare waxa anigoo Caynaawiye iyo intii barnaamijkan oo kala ku kulmi doono assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh